Nowadays you hear, especially in Silicon Valley, about dopamine fasting. I'm not going to do anything that stimulates dopamine. That will reset what you find pleasurable. May have heard of called dopamine fasting. Okay. Yeah, I've heard the word. Dopamine fasting is a brain hack that makes self-improvement absolutely effortless. But technically, you can't fast from dopamine. Your brain produces it. So all of this talk of dopamine detoxes and things. sanadkii 2019 magaalada Silicon Valley ee Mareykanka waxaa deganaa nin lagu magacaabo Dr. Cameron oo ahaa cilmi nafsiyaqaan bare ka ah University of California San Francisco kuna takhasusay dhibaatooyinka ku tiirsanaanta iyo xakamaynta nafsadda. Dr. Cameron wuxuu maalin walba la kulmi jiray dad ka shaqeeya tiknoolajiyadda kuwaas oo saacad walba ku jiro social mediaha notificationska video aan dhammaad lahayn sida TikTok shortska emailada iyo geemyada. dadkan maskaxdooda waxay ahayd mid daalan diiran la'aan ah hurdo la'aan ah oo waliba dareemayo walbahaar aan sabab lahayn. Dr. Cameron wuxuu arkay hal arrin taasoo ahayd dadkani ma aysan xumeen balse maskaxdooda ayaa buux dhaafisay. maalmo kadib maalin uu cashir siinayo koox arday ah ayuu ka hadlay hab uu ugu yeeray dopamine fasting. wuxuuna sharaxay in maskaxda bini'aadamka ay u baahan tahay nasiino si ay u joojiso farxadda degdega ah oo joogtada u soo dhacaysa maalin kasta. tusaale ahaan si aad u taajirtid waxaad u baahan tahay inaad dadaal weyn muujisid kadib saas cod isku taajiri kartaa, balse tani way ka duwan tahay. TikTok-da aad furtidba waxaad rabtaa inaad muuqaallo qiimo leh oo ku farxad geliyo waqtigaas aad dhegaysatid heese aan diinteen islaamka laga ogoleen oo markaad ku farxad gelinayo inaad dhegaysatid ciyaaraha mobilka laga dhelo sida gamingka ah inaad dheeshid scrollinka aan dhammaadka lahayn ay doonaysaa maskaxdaada. waxaasoo dhan waxay qofku ku abuurayeen dopamine overload taasoo ah awoodda diiradda iyo xasilooni la'aanta. waxaan ka hadli doonaa maanta wax la yiraahdo dopamine addiction inuu qofku sheega tacawud la sameeyo. waxaad arkaysaa qof hal shay deyn kari la oo shayga satisfaction ka dareemaya ama mataqaanaa wanaag farxad ka dareemaya markuu shayga sameeyo haday noqoto social media anwaacdeeda kala duwan. dadkii waxaad arkaysaa 5 daqiiqo ama 10 daqiiqo ma dhaafi karo qofka isagoon saa u eegin accountkiisii iyo mise qof uu la gareeyay iyo mise qof eegay wax noocaas ah. dadka tacawudka la sameeyay inay heesaha farxadda ka helaan oo markuu hees dhageysto saacado qeyr caadi dareemay. qof waxa arkaysaa heesu dhageysanaya ajwaadiisi ahayn uu nool yahay markuu hees dhageysanayo si fiican. dada waxa jira yani fikradda xataa qof inuu qof kale calaaqad kula jiro oo farxadda dhan ee uu dareemayo qofkaas uu ka helaya macna. waxaa xasuustaa nin qolo TV lahayd soo wareysanayay TV ka soo garaaco dadkii su'aalaha ka qaadayeen mugti marka wuxuu ku yiri niyow waxaan weydiinayaa habeenoo dhan jacayl baan dareemaya macna xiisaan dhageysanayaa jawi baan ku jiraa ma seexan karo ma kamay waxaan jeclayna ma garanay iyagu kulay malii sheega waxaan jeclahay wax uu ka helay satisfaction ka helay heestii iyo ajwaadeedii waxyaabaha noocaas. waxyaabo waa sigaarka ayaa soo hoos galay qayb ka mid ah waxyaabo activities cayiman oo la sameeyo dadku la qabsadeen soo hoos galay. waa mowduuc broad ah si qayb xada u balaaran dadkuna aanay ogeyn in waxaan chemical transmitters yihiin aanay wax actually si sax u dhacay aanay ahayn. yani waxa weeyaan fikradda guud waxa weeyaan xikmad baa tiraahdaa كل شيء زاد عن حده انقلب ضده.
wax kasta oo xadkiisa ka baxa si fiican opposite ku noqda oo qofka wuxuu meeyaa dhibaato u keena markaas markaas wixii aad islahayd ha ku wanaajiyo hadduu ka tambato oo xadka uu ka sii baxo uu dakhdan ku gelinaya marka ujeedku waxa weeyaan in shayga la kontrolo qofkuna uu su'aal isweydiiyo waxan uu mataqaana tacalluqa ku sameeyay ma wax nafci u leh mise wax nafci u leh maaha si fiican maxaa noloshiisa uga soo kordhaya hadday noqoto caafimaad jasadiya hadday noqoto caafimaad dihniya hadday noqoto caafimaad mashqana educational oo aqoona haddii ay noqoto maxaa la yidhahdayay wax maadiya oo caa'id markuu dr cameron qoray sharaxaad jar oo ku saabsan dopamine fasting markii ugu horreysay warbaahinta ka faalloota tiknoolajiyadda ee california ayaa aragtay ereygan cusub oo ah dopamine fasting waxay yiraahdeen tani waa fikrad cusub oo dadka ka caawin karta khatarta ay leedahay nolosha digitalka ah markii ay warbaahinta qortay youtubers badan ayaa ka sameeyey muuqaalo ciwaan uu u yahay dopamine fasting kuwaasoo ku baahiyey baraha bulshada kadib faafitaanka ereygaas dopamine fasting dad badan ayaa bilaabay tijaabin qaar waxay damiyeen teleefoonkooda 12 saacadood qaar waxay bilaabeen in maalinta ay xadda ah ay isticmaaleen telefoon qaar waxay bilaabeen jimicsi socod iyo akhris badan oo iyagu ku bedelay meeshuu telefoonku geli jiray kadib markii ay dareemeen isbeddel muuqdo waxay la sii wadaageen asxaabtooda saas ayay ugu faaftay dunida fikradda ah dopamine fasting daawade haddii intaa nala soo gaartood ku mahadsan tahay daawashadaada muuqaalkeenna maanta halkanuu ku egyahay kaasoon uga hadlaynay xalkuu ka soo bilowday kelimadda loo yaqaano dopamine fasting haddii aad wax uun ka faa'iiday muuqaalkani fadlan subscribe noo saar gambareelkana furses ula socoteed muuqaaladayna damboon soo gelin doona waa anigoo ah cabdixakiim elanko ha moogaanin muuqaalada damboon ka samayn doona dopamine fasting dopamine wuxuu ka mid yahay fariimaha kiimikeed jirkeena laga soo dayo kuwa ugu muhiimsan sababtoo ah qofka waxyaabaha lagu garto in dopaminka ay ku yartahay waxaa ka mid ah caajiska tirada badan hurdada rabitaan la'aanta inuu wax qabto qofka waxaa lagula taliyaa inuu activity sameeyo wuxuu jecel yahay raadiyo xitaa haddii asaga uusan ogeyn inuu majaalo kala duwan tijaabiyo si farxad u raadiyo maxaa yeele hormoonkaas waa hormoonka nasiya nashaadka dhaxgalka bulshada farxadda reenreenta dareemaha wanaagsan fikirka wanaagsan wax soo saarka qaybo weyn oo ka qaataa sida endorphins oo kale sida